بسم الله الرحمن الرحيم كسر ولا شبكة سم كودرس وأنا قاعد أفتح عبد الله iyo koorskeeni barashada asaasiga Bootstrap 4 casharkan hore waxaynu ugu joogtay taxanayaasha iyo sida ay ula macaamisho Bootstrap ama list groups sida u taqaan casharkan waxaan ku qaadanaa tableska ama shaxanada iyo sida ay Bootstrap ula macaamisho kalaasyada ku jira waxaan sameeynaa marka go live ayaan leenahay si aynu serverkeena u daarno hadaan isticmaalahayn plugin-kan ama extension-kan hadaan isticmaalahayn waxaan sameynaysaa caadi marka koodka halkan qortid refresh ayaa dhihi doontaa right click intaas tiraahid waxa ka furi doontaa browserka marka isticmaalaysid okay inta aynu iska soo tirina column-kan oo dhan iska soo tirina halka row iyo halka container ama halka jiifta ayaynu soo reebanayna halkan waxaan ku sameynaa table-ka taqaanay HTML table-kaas oo ka kooban tusaalahan 3 row walbana uu ka kooban yahay table data waxa ku qoran xogta بعدين waxaan leenahay waxay samaysaa mid walba inay ka kooban tahay laba table data ama joogta table-kan ayaan samaysanaa ama shaxankan qaabkaas u sameyn doonto waa qaabkan uu istagaysaa marka si aynu u bedelno table-kan oo gabi ahaantiisa u bedelno waxaanu dhihi karnaa kalaas waxa lagu soo dartaa la dhaho table marka table-kani waa qurux banaaday simply inta kaliya ayaa kaaga dhigan hadda Bootstrap sinaasid inaad table-ka ku soo qurxisatid waxa kale oo ku soo dari kartaa table tag ayaa leedahay marka fartin oo cadaan background-ka uu madowaaday inta kaga mahali kartid waxa dhigi kartaa table half marka weeye table-kan hadda dul istaagno u jeedaa inuu half state-ki CSS-ka yeelanayo markan dul soconayo u jeedaa haddaan ka reebana already arkimaysid halfki inta kaga mahali kartid waxa dhigi kartaa table striped wax kale ma aha jiiftax walba wuxuu ka dhigayaa midab gooni ah tan waa yara midab madow khafiifa kama madow adag kama madow khafiifa haddii aad ka reebano background-ka madowna waxa u jeedaa inaad arkaysid jiiftaxan background-keeda iyo kan inay kala duwan yihiin marka qaabkaas oo kala soo baxaya hadda mid kale ku soo daro kana way kaanaysaa marka saas uu wadayaa gray white saas waxa kale oo ku soo dhigi kartaa table bordered waxa ku soo dari kartaa xuduud ku wareegsan columns-ka iyo rows-ka ama joogtayaasha iyo jiiftayaasha haddii kan waxa dhigi kartaa table border less si aad uga reebto wax la wixii border ah ama xuduudii ku wareegsan marka kaliya ma ahayna hal kalaas ku koobi kartid 3 kalaas iyo ka badan baa isticmaali karta haddaynu u nimaano table data-da maadaama aynu hadda isticmaalno rows-kan ama jiiftayaashan qaybta ugu horeysa waxaan ka dhiganaa th say inuu bold u noqoto si ay u taqaan table heading waxaan kaloo ku soo dari karnaa table head oo t header iyo t body oo ah table body si ay u taqaaneen table-ka caadiga marka kan oo cut waan leeyahay table heading kan geenaya intan hoos oo dhan waxaan leeyahay waxaad iga dhigtaa body ama ubuucdii hoose ee table-ka okay halkan aan keenayaa kaliya kale kuma soo darin intaas waa heading-kii intana waa body-gii oo ubuucdii hoose marka table-ka haddii ay badato tusaale ahaan xogtiisan oo qaybta ugu horeysa xogtan badiyo duplicate dhaho tana badiyo waxa u jeedaan inay bateen column-yadii ama joogtaxyadii baa batay 4 joogtax buu leeyahay kana 4 joogtax marka haddii aad shaashada yar ka soo gashid oo u jeedaa si ciriirkaas kugu noqdeen qayb baa ka qarsoomaysa kaliya waxa u baahan tahay inaad ku soo dartid table responsive marka isaga ayaa wuxuu ka xalinayaa class-kani media query-ga u jeedaa halka wuxuu ku yeeshay scroll haddaan ka reebno responsive waxa u jeedaa in aysan wax muuqanahayn marka responsive-kaas ayaad ka dhigin kartaa sidoo kale borderless-kan waa iska tuuraynaa sisan inagu badan haddii aad doonayso inaad la macaamishid screen size-ka ama cabirada shaashada gooniya halkan waxaad ka dari kartaa sm lg md sidaynu hore ugu soo dhiganay casharadeenii hore oo breakpoints-ki t heading-ka waxaad ku samayn kartaa class la dhaho t head dag ayaad leedahay markaad tiraahdo table heading dag background-ka wuxuu ka dhigayaa madow fartina cadaan ayuu ka dhigayaa automatic ayuu isu bedelayaa marka uma baahnid inaad waxaan oo dhan ka fakartid aan iska taatirno intan dheeraadka ah sidaynu u qurux badnaa table-kan okay waxaa kaloo ku soo dari kartaa waxaad dhigi kartaa t head light si midabka yar wuxuu ku noqonayaa ka duwan midabada kale
waxaa kaloo kusoo dari kartaa backgroundski waxaa leedahay class tusaalaan rowga ugu hore waxaa dhigi kartaa active waxaa leedahay table active ayaa dhigi kartaa marka waxay ku noqonaysaa mid active ama primary sababta classkan ayaa override galinaya in classka ka masaxa ujeedaa markan primary waxaa kaloo dhigi kartaa info success warning waa dhigi kartaa haddii kalena waxaa samayn kartaa pg-ga caadiga ay samayn kartaa in naqaan waxaa dhigi kartaa pg success soo kanoo kale success ayay noqotay ama info ayaa isticmaali kartaa marka backgroundskooda saas kale u bedeli kartaa wax badan ayaa ka bedeli kartaa tableska intaas ayaynu kusoo koobaynaa waxay kaga baahan tahay inaad la qabsatid practical fara badan inaad samaysid ama isku day fara badan inaad samaysid aad iyo aad ayay umahadsantihiin wabilaahi towfiiq